76 sanadood ayaa ka soo wareegatay xilligii la aasaasay ciidanka booliska Soomaaliyeed oo ah hooyada ciidamada qalabka sida ee qarankeena Soomaaliyeed. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hambalyo ku aadan munaasabadda sanad guurada 76aad u diray ciidanka booliska Soomaaliyeed. Madaxweynaha ayaa bartiisa Facebook ku soo qoray hambalyada, waxaana hambalyo iyo bogaadin u diraya dhammaan ciidanka booliska Soomaaliyeed ee u dabaaldegaya sanad guuradii 76aad ee aasaaska ciidanka booliska. qarni dhiman in ka yar rubac waa muddo dheer oo lagu gaamuro. Waxaan u rajaynayaa inay noqdaan kuwo ku guuleysta sareysiinta iyo ilaalinta sharciga iyo xuquuqda muwaadinka oo ay ugu horeyso amnigiisa, maalkiisa iyo sharafkiisa. Sidoo kale waxaan ku dhiirigelinayaa kuna dardaarmayaa inaanay ku milmin isjiidka siyaasadda maanta ka jira dalka ama ka jiri doona, noqda kuwo lagu faano oo ku guuleysta weligood xilka loo igmaday. Ilaahay idinkii